السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين أدونك دعلديسي دافيسي ميل مشهد جوجتان. هلغو سو دواادو قلبي فرن وجي فرن هلغو سو دواادو برنامجka maanta miiska noo saaran waxa weeye waa sida cawaankiisa aad u jeedaan oo kor ku qoran maanta iyo dhabka hadalka kulligiinaba fadlan halan la share gareeyo kuna soo dhawaada hala soo dhawaado kulligiina soo dhawaada aad iyo aad baan idin salaamayaa kaliya laab soo dhawaada نون صاحب آد بانو كو سلام هيا قاقان آدي آد بانو كو سلام هيا سلام كلي اللاب آدي آد بانو كو سلام هيا كل جينا بو سودو هذا هلا صوبتو هانا لا سودو هذا برنامج كان بفضلا هانا لو شير قريو ها نون أحمد آد بانو كو سلام هيا صاحب قالي آدي آد بانو ندي سلام كل جينا بو soo dhawaada barnaamijkana noo la soo dhawaado chef saaxib qaali soo dhawaada naftaada soo dhawaada هلا والسلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. هاي بالورن. والله aad baa loo fiican yahay xaggaaga bal waran xaggayagana aad loo fiican yahay maxaad haysaa balwaran waxa dhowr jeer baan yiri dhageystaada hadlay maanta maxaad ka hadlaysaa dhowr jeer haddaad dhegaysatid maanta waxaa miiska noo saaran ismaamulka Soomaali galbeed mataqaana Ethiopia haye iyo maanta awood qaybsiga mataqaana wasiirada iyo mataqaana ayaan maanta ka hadlaynaa marka ayaan falanqeyn doonaa maadaama ay meeshu degan yihiin qoomiyado badan mataqaana hal qabiiluna deganeen marka taasaan rabnaa inaan falanqeyno insha Allah qof kasta fikradiisa iyo sida ay la tahay inuu ka hadlo وعليكم السلام أحيا ودني سودوا ولا شغالي waa maxuu weeyaan adigu meel adoolan maqlay oromaanay marka adiga su'aalan ku weydiiya saaxiib oromaa tahay mise Soomaali baa tahay صاحب aniga wax ku su'aalayo adiga waxay ma su'aalaysid wajigaagana waji xanaaqsan baa ku qoran marka diblomaasiga sida loo hadlo wardin habiyaana waxiga baqal ma jiraan laakiin macnaha waa maadaama uu tiri Soomaaliyan ka hadalo waa su'aalan ku weydiiyay un weeyaan marka dhibaato ha warkin adaa maalin weyd marka fiiri aniga hadda marka leedahay maalin dhaweedaan ku arkayay adoo hadlaayo ma Oromo tahay mise Soomaali baa tahay marka ay leedahay xoogaa ma taqaanaa inuu xanaaq kugu jira laga dareemaya afkan kugu la hadlaayo muxuu yahay af Soomaali Soomaa ها Soomaaliga iyo Oromada labaduba waa la isla yaqaanaa waa caadi dhibaato ma jirto laakiin adiga xageed ka soo jeedaa marka aniga aanu dawlad deegaankan ka soo jeedaa waa dawlad deegaanka maadaama ay ka soo jeedid xagee baad u badan tahay anu waxaan ka soo jeedaa xageed badan tahay waa maxaad halkeed ilaada xageed badan tahay dawlad deegaanka doonaysaa qabiilkaagaan doonayaa hadda adiga inaad Oromo tahay inaad Soomaali tahay waa diiday anuna Soomaali anahay gobolkaasaan ka soo jeedaa gobolka faafan baan ka soo jeedaa ma garata maydab maadaama barnaamijkayga la socotid waxyaalahan ka hadlana aad la socotid maadaama su'aashaada ugu horreysa aad tiri ma Soomaali baa tahay mise Oromo kulley waxaan ahayna waad og tahay waad ka dhirigsan tahay waadna la socotaa ma fahmino kulley waxaan u maleynayaa dadka Facebookyada ku soo qoro الأحمد شيء هل دليل أما الله سكو قرحيو لكن تتكاسي بكتير دي وحده ضلنا وانا ماشان وحوي وحاجة رول أند ريجوليشن ماشان وحوي سياستها حتى لا تشانقادي كرت لا تشانقاد لكن قبيل حتى متقان وحكون رئيسين قبيل تملكوا مجينايو لكن صومالي بينت الوار كعسنا يوم متقان يا أحد يا صومالي على صوقل على صوب حيل اللي هاي أيان كهلا إنها مانتا لكن ما أنت سيد هذيك واحد دون سي قبيلة ذا كلنا أما قومي ذا كلو دون هاي المقرات كمورن واحد دون كمورن من صوماليا تهاي qabiil kastoo Soomaaliya oo degan dhulka xaq bay u leeyihiin adiga su'aashan ku weydiinayo waxa weeye yaa ma ogaadeen baa tahay ii sheeg ma aan ogaadeen meehi yaa tahay marka Soomaali baan ahay warta Soomaali baan ahay de ma hadda noo sheegtay inaad meeshan de ruwaayada la isu dhigi maaye qabiilkaaga miyaad ka baqaysaa
hadhowna laabka intaad soo geshid baad leedahay waxa weeye saasaan laakiin aniga waxaad la soo hor fadhiisanaysaa Soomaali baan ahay inaad Soomaali tahay kuma diidayo Soomaali inaad tahay af Soomaali ku hadlayso waan ku jeedaa laakiin yaa tahay xageed ka soo jeedaa waxa weeyaan inaad adigu su'aashaydii ahayd ma Oromo Times Soomaali baad diiday anigana qabiilkayga doon saan weydiiso waana ku salaamayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa adiga laftaadu dadka lama caayo ma garatay qabiilada caayda Soomaali ma ani barnaamijkayga caaydu waa ka mamnuuc inaad dhageyso ana ku barnaamijkayga caaydu waa ka mamnuuc ana ku maqlay adoo caayo qabiil caayo ka waran nin weyno waa tahay yaan caayo qabiilkeeban caayo balsigbal qabiilkeeban caayo qabiilkaadi weydiisad lahayd ma ogaadeen ba taybad caayisay ma garatay ma caayin ogaadeen waa dad sharaf leh laakiin dulmiga iyo beentii wax iska dhaadhicinayaan wax iska gadaayaan baa rabaa inaan ka qabto ee dadka Soomaalida wax la qaybsadaan la jaan qaadaan ma fahamta laakiin anigu ma ogoli inay dad dulmiyaan iyo waxa waan ka soo horjeedaa anigu dulmigooda ma garatay qabiil kasto Soomaali oo deegaanka deganeen oo xaqiisa helo waa sax weeyaan maalin weyn nin baad soo qabatay Oromo ku wada hadlayseen waxaan ku weydiiyay hadda ma Oromo tahay markaas aad labadiina waxaad lahaydeen yani Oromo nahay Oromo ku hadlay ayuu ku hadlay Oromo ku sheekay saaxiib firi Ingiriisi waan ku hadlaa Oromo waan ku hadlaa Axmaari waan ku hadlaa Soomaali waan ku hadlaa Carabi waan ku hadlaa laakiin wax barashadaydi weeye wax halkaan la gaaray ma macnaheedu adiga hadda gobolka aad joogtid aad ma taqaanaa ama aad degan tahay maxaa lagaga shaqeystaa maxaa lagaga hadlaa Ingiriisi waa laga hadlaa Ingiriisi waad ku hadli kartaa soo maaha of course okay Ingiriisi hadaa ku hadashid adiga ma cadaan baa tahay mise madow baa tahay hadaan ku weydiiyo ka waran ma anu qof ema garanti aan ahay ma garatay dhibaato ma jirto laakiin adigan ku weydiinaya su'aal saaxiibay bal goboladaynu sagdeenaay halkeed adigu gobolka ka soo jeedaa anu gobolka Faafan ka soo jeedaa maayo aniga su'aasha miiska ii saar adiga waxay ma weydiin kartaa aniga wax ku weydiiyo iga jawaabtid way baraade ma garatay anu Faafan ka soo jeedaa iga leexinin barnaamijkan wata iga leexinin brother barnaamijkan wata iga leexinin laakiin ha isku dayin inaan mataqaanaa aan ku hogaansanaado ama aan ku daba socdo ha isku dayin laakiin sida walaaltinimada iyo wanaagga ku jirto aan wax ku wada qaybsanno sida haddii mataqaanaa maanta 4 iyo 5 keeba badan maya 4 iyo 5 shanta badan ee waxaan ku yiri gobolka waa 9 gobol weeye gobolka waa 9 gobol weeye anu gobolka Faafan ma ka soo jeedaa gobolka magac buu leeyahay adu gobolka ka soo jeedaa soo gobolkii diyaaru mi hadda iga raalihanaysa saaxiib Cabdulqaadir عدى وحوي مر وحوي كاميرا كوما فرو صاحب وردود بو دربنا لا سو غلاي وساسو ربا انو wax ku difaaco saasu raba inuu wax ku sameeyo saasu raba warqabiilada lacay maxay tahay qabiilada lacay xagee joogan war adiga Axmed Shida shalay u dhaaranay hal dilay hal isku qarxiyo waxaas inay criminal tahay oo ma taqaana meesha aad degan tahay meesha joogtay laga warayso ma ogid suuq bal marka Cabdulqaadir kaamirada kuma furo waxay tahay ma aqaano waxaad sameynaysaa hal mar inta ka dhacday dib ugu soo laabo ma aqaan barnaamijka maanta waxa meesha noo saaran dhabka hadalka dawladda ismaamulka dawladda Itoobiya meesha noo saaran absamow haddii adiga iskugu habar wacatay aad rabtid inaad mataqaanaa ama wax gumaadida ama wax laasid xaggana Ciisa ka degan xaggana Soomaaliland baa ka degan dhankan kalena Oromiyo Diros wada ka degan afarta jaa oo baad ku jirtaa ziirad ku jirtaa aniga waxna ma caayo waxna ma afnagaadeeyo haddii aad colaad adiga aad ku goobaabisid aad colaad aad rabtid aad inaad bilaawdo colaad ma taqaana aad wax ku soo dhacsatid ama dadka cagta dhulka ugu dhufatid ama dadku hanjabtid no way taas ma soconayso waana woodaa laakiin inaan kugu gumaado 40 milyan oo Oromo inaan kugu gumaado adigoo laba meelood ka soo jeedo dhagax buur ama qorxley ama qorxay meesha saad rabto u qaado meesha tahay ma fahamino laakiin aniga ma sameeynayo gobonimada ka raacaya waxaan ka raacayaa islaamnimada diinta iyo walaaltinimada ka raacaya laakiin sida adiga ciyaaladan Facebook lagu soo daayay okay ha Cabdulqaadir had ku furan tahay ku soo dhawaab barnaamijka marka anaga dulmiga iyo dhibaatadan diidanahay dulmiga dilo assalaamu calaykum Cabdulqaadir wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaa walaal qaali barnaamijka miiska noo saaran dhabka hadalka iyo maanta iyo Soomaali galbeed fadlan barnaamijkana noo sheer garee sidee baad u aragtaa awood qaybsiga maanta 25 30 sano la soo dhaafay inay hal qabiil meeshan ay maamuli jireen hal qabiil ay isku celcelin jireen hal qabiil oo ma taqaana maantana ay rabaan inay ayagu maamulaan maantana ayagina
oo lala degan yahay hadday irir iga raalli ah barnaamijka intaan ku jiro waan idinku soo celin doonaa soo wicina hadday irir Soomaali tahay hadday mataqaanaa qoomiyadaha kale meesha degan ay tahay oo maantana la doonaayo oo looga badan yahay maantana la doonaayo in mataqaanaa adigana laba lagu siiyo ayagana inta u badan reer ahaan si ay u dhan yihiin isugu qaybiyaan shalayna yarkii ninkii gumaadi jiray oo mataqaanaa Cabdi Ilay ahaa maantana ay u doodahayaan maanta Cabdi Ilay haddii cadaalad dadkii uu dambiga uu ka galay cafiyaan annagu waxba kuma haysano laakiin adigana ma cafi kartaa anna ma cafin kara laakiin dad buu dambi ka galay dad buu mataqaanaa wax xasuuqay dad buu dhibaato u geystay waxa way qoomiyadu madaxa isu galiyay laakiin maanta adiga haddii aan waxba laga dilan waxba lagu sameeyna aad u doodid aad tiraa Cabdi Ilay free ama ha soo baxo taas waxay kugu tahay xaq darro kugu tahay sidee baad u aragtaa adiga barnaamijka sii godogalaya saaxiib waa mahadsan tahay waxaa la rabaa horta ummadda Soomaaliyeed dad baa xaqiran ilaa iyo maaragtay qarniyo meesha degan maaragtay xuquuqlada ugu waaweyn ka degan tusaale ahaan anigu waxaan ahay nin karanla hawiye ah maaragtay oo irir Soomaali ah waxaan degaa maaragtay baabili meesha la yiraahdo dhadham ayaan degaa cali Ethiopia meesha la yiraahdo waxaan degaa maaragtay meesha la yiraahdo Cobosha Gooha Biiqo iyo gobollo kale oo fara badan toga ilaa adari meeshii la dhihi jiro har dadka u yaqaaniin Soomaalida toga daaqada la yiraahdo oo ilaa iyo webiga Shabeelle ku dara dadka deganaan horta ma garan soo fiican sax waxaan ahay dadka uu ka dhashay ninkii haliyayga ahaa ee Axmed Gurey ahaa ee qof walba iska sheegato habar kasta ku soo ordo Axmed Gurey ninka la yiraahdo waa nin karanla ah saxawla ah oo ardabara ah oo rayroona ma garan sax soo fiican abka abuu iga soo jeedaa qaar baa yira waa Oromo qaar baa yira waa ogaadeen qaar baa yira waa saanin reerowsan ka dhalan waa Oromoobeen dadka uu ka dhashay gibigooda afka Oromada ay ku hadlaan waa saxawla karana wala yaqaan ma garan sax marka ninka sidaa baan ahay dhulka weyn Ilaahay siiyay gobolada ugu waaweyn ku leh waxaan kaloo laba degmo ka degaa meesha la yiraahdo jigjigada nafteeda meel la yiraahdo Dibow iyo Hoosaale ayaan ka degaa anoo karanla dhulka saasaan u aqaanaa dadka waa la dhashay waanu isla deganahay ilaa intaana waa xaqirahay anoo walaalkooda Soomaali ah la dhashay qabiilna qaranna oo waayay waxa shidada looga bixi waayo waxay tahay in la yiraahdo dhulkan qolag صح سفيان maanta waxaan rabaa wixii maanta ka dambeeya Soomaali waxa xaqiisa helaan ninkii qaylsha